بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة ديال ملك السوق جوجتان كسر دوادا مامي أكاديمي هديتها مركز ووري أصابة وتكنل كفلنا سبسكرايب صار لايك صار شير صار حتى أنا لسي وذاك كسر دوادا ما تاريخ يروجعون وأنا يجودنا دلك إسبين كبوشة وعن دعوة ده dalka Spain wuxuu ka mid yahay dalalka ku yaala qaaradda Yurub gaar ahaan koonfur galbeed waxaana loo yaqaanaa Jamhuuriyadda Federaalka Spain. Dalkan oo loo aqoonsan yahay dalka afraad ee Yurub oo dhan ugu weyn wuxuu xuduud dhuleed la leeyahay dalal ay ka mid yihiin Faransiiska, Boortaqiiska iyo dalka Morocco. waana dalka kaliya ee Yurub ku yaala ee hadda qaaradda Afrika xuduud la leh. dalka Spain waxaa sidoo kale uu leeyahay jasiirado badan oo loo dalxiis tago. tirada dadka Spain u dhashay waxaa lagu qiyaasaa 47 milyan oo qof, waana taas tan keentay in loo aqoonsado dalka shanaad ee Yurub ugu dadka badan. caasimada dalkani aanu ku hadlayno waxaa la yiraahdaa Madrid. luuqadda dalkan looga hadlana waa af Isbaanish. gaadiidkiisu waxay isku dhaafaan dhanka midig waxaana laga adeegsadaa lacagta Yurub ee Yuroga. dalkan Spain oo taariikhyahanadu aaminsan yihiin in waagii hore la oran jiray Hispania waxaa la aaminsan yahay in la aaldegay 35,000 oo sano ka hor. taariikhyahanada qaar waxay aaminsan yihiin dowladnimada Spain markii ugu horeysay la aasaasay sanadku markuu ahaa 1479. dalka Spain oo ay maamulo kala duwan soo mareen nidaamka dimuqraadiyadda ee hadda ka jira waxaa la aasaasay 1978. marka taariikhda dib loogu laabto dalkan wuxuu ka mid yahay wadamadii Islaamka gaaray qarnigii 8aad. dagaal sokeeye ee Spain ka dhacay intii u dhaxaysay 1936 ilaa 1939 oo ay ku naf waayeen qiyaastii 500,000 oo qof. ugu dambeyn talada dalka waxay gacanta u gashay sarkaalkii la oran jiray Francisco Franco. Spain oo ka mid ah dowladihii dunida dalalka ku yaala soo gumeystay dalal badan ayaa bartay oo hadda looga hadlaa afka Isbaanishka, waxaana luqadda Spain tahay tan labaad ee adduunka dadka ugu badan ku hadlaan. qiyaastii 500 milyan oo qof oo dunida ku nool ayaa ku hadla afka Isbaanishka. wadankan aanu ka hadlayno ee Spain hadda wuxuu xubin ka yahay qaramada midoobay, ururka midowga Yurub, ururka gaashaanbuurta NATO, ururka ganacsiga adduunka ee WTO iyo ururo kale. dowladda hadda jirta oo loo soo doortay waxaa sidoo kale taladu ka go'daa boqorka dalkaasi. hase ahaatee waxaa jira maamul goboleedyo iskooda isku maamula, waxaana ka mid ah maamulka gobolka Catalonia oo hadda doonaya inay noqdaan dal gooni ah oo Spain ka madax bannaan. xagga dhaqaalaha haddii aanu eegno, dalka Spain waa dalka 14aad ee dunida ugu dhaqaalaha badan. qiimeyn la sameeyay sanadkii hore qiyaastii 7% dadka wadankaasi ayaa shaqo la'aan ah marka loo eego bulshada dalkaasi. 10 sano ka hor dadka shaqo la'aanta ah waxay gaarayeen 20% sida lagu baahiyay xog uu shaaciyay Bangiga Adduunka. dalkan wuxuu sidoo kale ka mid yahay dalalka martigeliya dadka soo galootiga ah, waxaana lagu qiyaasay dadka magaaladaasi u jooga dalkaasi in ka badan 5 milyan oo qof. dowladda hadda jirta waxbarashadu waa lacag la'aan, waxaana qasab ah in iskuul la geeyo oo wax la baro carruur da'doodu u dhaxayso 6 ilaa 16 jir. xagga diimaha, dowladda dalkaasi ka jirta waxay aaminsan tahay in dadka ugu badan ay Masiixiyiin yihiin. Islaamku oo dalkaasi gaaray qarnigii 8aad, Muslimiintu waxay bulshada dalkaasi ka yihiin in ka badan 4%. dhaqanka marka loo eego, ragga iyo dumarkuba waxay xirtaan dhar dhaadheer, timahana raggu waa daystaan. raashinka loogu jecel yahay waa maraqa laga sameeyo hilbaha xoolaha oo dalkaasi looga yaqaano paella. xagga ciyaaraha haddii aan eegnana, kubadda cagta aad ayaa looga xiiseeyaa horyaalka Spain ee La Liga. adduunyada looga xiiseeyaa dunidana looga xiiseeyaa. kooxo qaab ciyaareedkoodu aad loo jecel yahay oo ay ka mid yihiin Real Madrid, Barcelona iyo kooxo kale ayaa ka jira dalkaasi.
xulka qaranka dalkaas 3 mar ayuu ku guuleystay koobka horyaalka Yurub sanadihii 1964, 2008 iyo 2012 iyo hal mar oo ay qaadeen koobka adduunka waxaana ay ahayd 2010. Cayaaro kale oo ay ka mid yihiin feerka, tenniska, basketka iyo cayaaro kale ayaa dalkaasi laga xiiseeyaa. Waxaase jira cayaar dhaqameed dalkaasi laga xiiseeyo waana ciyaarta dibi la dagaalanka. Cayaaraha noocan oo kale waxaa sharci inuu ka qayb galo dibi ugu yaraan 6 sano jir sanad walbana qiyaastii malaayiin dibi ayaa geeriyoota noocan oo kale ku geeriyoota.